ugu yaraan 25 dukaan ayaa albabada la iskugu dhuftay deegaanka Harare ee hoosta tuulada Qaliija iyadoo raashinka qutub daruuriga ay kala hor siirteen ganacsatada Soomaalida kadib markii ay soo gaartay hanjabaadyo iyo digniino kala duwan ay ka heleen qaar ka mid ah ganacsatada u dhashay dalkan Koonfur Afrika. haddaba si aan xog badan uga ogaano ayaa TV-ga caalamiga Universal gaaray deegaankaasi oo ah deegaan halis badan oo dhanka ammaanka u yahay mid khatar ah isla markaana lagu dilay Soomaalida ugu badneed ee ku sugan gudaha dalka Koonfur Afrika. qaar ka mid ah dukaamada la xiray oo aan booqanay ayaa kula kulanay ganacsatada Soomaalida oo iska dhex joogta dukaanka oo faaruq ah maadaama toddobaadkii ka hor la bubay isla deegaankaasi waxayna ka warbixinayaan sida ay xaaladda tahay. waxaan community-an ee dhahayaan laakiin ma community waxa waa dad oo ganacsi oo dukaaman oo waxbarashada waaye marka xogso soo dhumanayaan dad oo maartay community-an aan hayndahayaan laakiin community maahan alaabtana dhulka la soo dhigo hana la qaato hadda korna in imaadeen ay alaab ka qaateen dukaanka waxay uga tageen fleetska bas inta kale alaabtiilana way qaateen ay yaa qaadanay marka waxa qaateen dad shacab oo socdo oo community-da la socdo waxay uga tageen oo kaliya lama fliijo maatil inta kale alaabatiilay oo lagu ganacsayo way qaateen kii horena waa jooga ana joogo martii laacay kaliya joogo maxaa dareemaysaa markaas waa ay imaadeen qoray u qabteen banaanka nooga baxay dheen oo la yimid diyaal oo ka watay qorayo banaanka u baxay waa carar markaas Soomaali agteen deganaa tagay waxa dhacay qaxaana dhacay mana naqaano anagu hadda waxa naloo yimiday dad socdo waxayna yiraahdeen dukaanta iska xira kana rarta waxayna waka hadda rumaantii aan kala waramo goobtii ganacsiga oo maaragtay dukaankii aan ka shaqeysayna dad South Africana oo gawaari watano yimideen saacada ay noo qabteen in alaabteena aan kala baxno oo meel alaala meeshii ay naqato aan ku badbaadina aan la aadno saas cala ajligeed waxaan soo beegsanay saldhiga Harare haddana ku sugannahay. sidoo kale TV-ga caalamiga Universal ayaa codsiiyay dadka deegaanka oo ka adeegta Soomaalida waxayna sheegeen inay aad uga xun yihiin inay ka tagaan ganacsatada Soomaalida isla markaana ay difaaci doonaan intii karaankooda iyagoo hadalka intaas ku daray in ganacsatada Soomaalida ay yihiin kuwa naxariis badan oo ay rabitaanka macaamiishooda. They work together in South African. We give the property to stay here and sell their goods. It's very nice to have the Somalians. Yes, we are here. We are supporting the Somalians to open the shops. Okay. Mohammed Musa Noor, Universal TV, South Africa.